dambi baaris waa filim aad daawateen 28 Maarso 2020 waa filim ka sheekaynaya ciidamo dambi baaris ah oo loo xil saarayo inay soo afjaraan kooxo burcad ah oo magaalada qas ka wada. Filimka waxa uu lahaa dhinacyo kala duwan, ha ahaato qaybaha ciidanka, hawlgallada ay fuliyaan, dhanka burcadda iyo falalka ay geysanayaan, iyo weliba qiso jacayl aan jaleecno sida loo sameeyay filimka dambi baaris. Filimka dambi baaris waxaa writer iyo director ka ahaa Faysal Bile. Waxaa jilayaasha muhiimka ah ay kala ahaayeen Nabiila, Saadaq, Samiir, Khalid, Daadir iyo sidoo kale Nuur. Waxaa kale oo jiray dhalinyaro kale oo filimka qayb ka qaadatay. Jilayaasha filimka doorka muhiimka ah ka qaatay waxa ay isugu jireen kuwa horay u wada shaqaynayay, kuwa horay filimaan ugu sameeyay shirkadda, iyo kuwa ku cusbaa jilista. Nuur iyo Nabiila ka hor dambi baaris waxa ay horay uga soo wada muuqdeen filim la yiraahdo Waan Isjecelnahay oo ay actor iyo actrice ka wada ahaayeen. maalintan waayo waxaan la qorxleedan doomoogidin ay ahayd maalinta ku helay. anigana waxay ahayd maalintii ugu nasiibka badneed, maalintaada adiga jeclaad isla markaana aad ii sheegatay jacaylka gacali mid ma ku dhahaane. xabiibi waan ku jeclahay inta aad dareemi kartid iyo in ka badanba. waan ku jeclaan doonaa inta aan noolahay. haddii aan geeriyoodana waxaan ku rajaynayaa nolol farxad badan ayaad soo wadaa soo maahan. lagama yaabo haddii aan ku waayay inaan noolaado nolol farxad badan. waan ku barayaa xabiibi ila noolow. Khalid iyo Tahliil dambi baaris ka hor waxay horay u wada sameeyeen filim la yiraahdo Aargudasho oo lagu sameeyay Beledweyne. Samiir iyo Saadaq oo filimka matalayay dhanka ciidanka waxay u ahayd markii ugu horeysay oo ay ka soo muuqdaan filimada shirkadda. waxaa tiin dadka ka hortagi lahaa waxaana la doonayaa inaad dalkiina iyo dadkiina si fiican uga shaqaysaan. haddana waxaanoo bilaaban doona howlgal cusub taasoo aynu ku doonayn inaan ku cirib tirno cid walboo dalkaanya caqabad ku ah. waxaana dhowaan bilaaban doona howlahaas. Daadir ka hor dambi baaris ma uusan ka soo muuqan filim, waxaana ay u ahayd filimkiisii ugu horreeyey, waxaana uu ahaa mid ka mid ah jilayaashii ugu jiliinka wanaagsanaa filimkaas. muhiimadda tal ayaa ah adiga nafsadaada ma naga badbaadsan kartaa mise gacanteena ayaad ku dhimanaysaa. master Daadir lama baahna ninkan inaan dilno, waayo waxaan ka dhiganaynaa wadadii aan ku soo ceshan lahayn dhammaan cadeymaha ciidanka naga qaateen. Filimka waxa ay duubistiisa bilaabatay 2 Oktoobar 2019. muuqaalka ugu horreeyay ee la duubana waxa uu ahaa isla muuqaalka ugu horreeyo aad ku aragtaan filimka. goobta aan ku samaynayna waxay ahayd Hotel Dolphin oo ku yaala xeebta Lido. oo kaliya mii fahantay. waxaan jeclaan lahaa arrimo aan diyaar u ahayn ka hadalkooda inaadan marnaba waqtiga luminin. saaxiib u kaadi. kadib waxaa xigay shaqo adag oo duubis ahayd inkastoo ay jirtay in mararka qaar ay istaagaysay duubista. haddaba waxaa filimka uu ahaa mid duubistiisa ay u socotay si wanaagsan. waxaa jirta muuqaalo la duubay balse aan lagu soo darin filimka. waxaan filayaa inaad hadda isweydiinaysaan sababta muuqaalkan filimka looga reebay iyo gabadhan waxa ay filimka ka ahayd. barnaamij kale ayaan kaga hadli doonnaa. waxaa kale oo jiray muuqaallo aan lagu soo darin filimka oo ahaa kuwo ay ku kulmayeen jilayaasha aan ku kulmin filimka markii aad daawanayseen. duubista filimka waxay ka dhacday lokeeshanno kala duwan, waxaana jilayaasha filimka ay ahaayeen kuwa si weyn loogu diyaargareeyey filimka. qof walbana waxa uu ahaa mid booskiisa si weyn uga soo baxay. goobaha filimka lagu jilay dhammaanba sida aad aragtaan waxay ahaayeen kuwa si wanaagsan loo soo xulay. qaybihii ugu adkaa iyo qaybihii ugu dheeraa ee filimka la sameeyey waxaa ka mid ahaa qaybta Samiir iyo Nabiilo ay fulinayaan howlgalka ugu horreeyo ee filimka. halo wantu Nabiilo mi maqshaa ragii way ku muuqdaan soo ma saaxib. haa way ii muuqdaan. okay degnaan muujiya sanka shakin howlgal wacan. iyo sidoo kale
qaybta samiir uu soo weerarayo khaalid iyo daadir xilliga ay ka wada hadlayaan arrimaha ganacsigooda burcadnimo. qaalid ninka xabaddu way ka dhamaatay. aniga xitaa saasay ila tahay ina keen soo soco. aniga wad iga badbaadeen balse ogaada sharciga gacantiisa kama badbaadi doontaan. qaybaha filimka ugu fududaa uguna yaryaraa ee filimka la sameeyey waxaa ka mid ah qaybta Elite Hotel oo sheeko ahaan ku soo dhexgelaysa filimka, waana qaybta keliya ee ay najmo kaga jirto filimka Dembi Baaris. ma filayn wallahi inay soo wiciist weliba dhegeysti la kol runtii aad iyo aad u fiican tahay. wax walba waxaan rajaynayaa sida aad u rabtidna u dhacaan Nuur. najmo aniga waxaan ku daba socday muddo sanad ku dhow oo aan rabay inaan noqdo qof qalbigaada degan oo jecelkaaga ah. waana dareemi kartaa shakhsi intaas ku daba socday inuu yahay shakhsi si dhaba kuu jecel aysan dheedheelka ahayn. ma aqaan aniga runtii waan dareemi waay dhibkaaga, waan dareemi waa jecelka ay qabto. waa sidaan hore kuugu sheegay aniga hadda kor ayaan qof jeclaade waana waay waxaan aaminsanahay mar walba inaan jecelku dareensanayo. aniga waan fahmi karaa dhibkaaga laakiin nolosha maana shakhsi hore ku dhaawac dartiis inaad u burburiso, waayo qofka haddii uu ku dhaawac hal mar ayuu kaa guulaystay balse asiga daraadiis haddii aad jecel oo dhan iska raafto loo mar ayuu kaa guulaystay. marka qofkii ku dhaawacmaya loo mar guusha siinaysaa. anigoo sidaas og runtii ayaan haddana bedeli waayo go-aankayga, laakiin hadda waxaan diyaar u ahay inaan go-aankayga bedelo weliba adiga darta. najmo waxaan kaa balaqaadayaa inaad dilowdo murugadaadii hore. waxaa kaa balaqaadaya inaan ku siiyo jecel fara badan iyo naxariis. waxaan kaa balaqaadayaa farxad aan dhammaan weligiina oo ku ilaashan doonaa marle iyo ogolow inaan qalbigaada dego. nuur markaan kusoo wacayayba go-aankayga waa bedelay, qalbigaygana adiga ayaa ku hubeeyey. waa ku baryaa khiyaanayga ilaali, sii kale nafta ayaan ku dhaafsiinayaa. nafteeda waxay noqotay mid xilli walba kuu baahan sidii biyaha ugu baahan tahay oo kale. marka sideen uga fikiraa inaan dhaawac kuu geysto? sidoo kale qaybaha ugu yar uguna fudud samayntooda waxaa ka mid ahaa qaybta Jaziiro oo ay ku kulmayaan Nabiila iyo Nuur. aniga nolosheeda hore umaysa lahayn qiso jacayl oo murugo leh sidaada oo kale, balse hadda ay yeelanaysaa ogow, waana ka xumahay. haddii aan kuu soo dhawaado ama haddii ka fogaanaysaane weligii adiga ka hor shakhsi jacayl uma qaadin, marka sideen ugu fikiraa shakhsigii ugu horreeyay aan jeclaado inaan dhaawaco? runtii dunida mar weji ay yeelanaysaa. shalay kuma fikirin najmo kadib ayaa ruux jeclaanaysaa. maantan adiga ayaa nolosheeda kusoo biiray. ogow Nuur inaanan ku cidlayn doonin marnaba. adinkana gabdhihiina dembi baarista noloshiina sida ay riski u tahay ayaad ragga masaakiinta aniga oo kalena aad qalbigooda mar walba riski u gelinaysaan. Nuur naga daa wixii hore iska ilow soo kuma dhihin, soo istaag ina keen. Nuur hadda waxaa rabaa nolosheena inaan ka dhigno mid aad u wanaagsan. waa arrin wanaagsan taleefkaaga dhacayo. ugu dambayn Dembi Baaris waxa uu noqday filim guulaystay, waxaana kooxda filimka ay waraysi kala duwan siiyeen TV-yada Soomaalida ee caalamiga ah. Dembi Baaris writing and director aniga ka markii laga soo tago jilinka hawsha kale filimka aniga qabanayo sheek ahaan haddii filimka ka dulmaran waxay tahay ama ku dulmarane filimka wuxuu ka sheekeynayaa wuxuu u dhexeeyaa kooxa burcada iyo sidoo kale dhalinyaro ka mid noqonaya ciidamada Dembi Baarista. dhalinyarada marka howlgalka loo xil saaraa wuxuu noqonayaa inay soo afjiraan koox burcada magaalada qaska hayso. howlgalkaas intii ay ku guda jiraan waxay ku weynayaan hal askari oo ka mid ah dadka dabcan loo xil saaro hawshaasi. ugu dambeyn laakiinse guusha ahayd inay soo afjiraan way soo afjarayaan oo dabcan guusha ugu dambaysa ay gaarayaan. marka filimka sheekadiis waa intaas, inkastoo waxa kale oo filimka ku jira qayb dabcan jacayl ah oo atriishada filimka iyo wiil kale ay matalayaan, balse wiilka filimka ku matalaya oo la yiraahdo Nuur
ka mid ah ciidamada ka mid ah burcadka laakiinse filimku wuxuu yeelayaa qayb dareen ah oo jacayl ah maadaama filimka intiis badan ama ruulkiis koobaad uu yahay action laakiin ninkan wuxuu u bedelayaa dabcan jacayl so waxaan ujeedkan wuxuu yahay in dabcan filimku uu noqdo balance jacaylna laga helo actionna laga helo sheekalna laga helo filimka marka ma qis ku yimid mise wax ay la filayo inay dhacaan horta filimka ugu horeyn haddii aad dadkii daawadan way arki doonaan markuu bilowdo qoraal baa jira oo waareen ah dabcan wargelin ah kama hadlaayo xaalad ka jirta dalka balse waa sheeko anaga aan qornay islamarkaana aan sameyn ujeedkeena wuxuu yahay inaan dabcan aan soomaalida tusino inaan samayn karno filimada dembi baarista maadaama hadda dadku inta badan macnaha waxay xiiseeyaan filimada dabcan howlgallada iyo mishinada iyo baarista iyo waxyaabahaas filimada loo xiiseeya markii laga soo kuwa jaceylka ah marka filimada in anaga ka Soomaali ahaan aan samayn karno ayaa filimka ku tijaabinaynay balse sheeko dhab ah oo xaalad dalka taagan ma ahan